qalbigaaga ayay jabinayaan waxay kaaga tagayaan sabab la'aan waxaad ka dooratay dadka oo dhan waxaad aamintay in badan waxaad u ahayd daacad waxaad u hurtay naftaada waxaad u samaysay wax kasta oo awooday laakiin wax kale iyo meel kale ayaa u muuqatay markasta waxa kuugu soo haray su'aalo maskaxdaada u garaacaya sida mawjadaha badda oo buur ku dhacaya waxaad isweydiinaysaa maxaan sameeyaa xagaasa wax ka bilaabaa maxaa xal ah haddaba xalku waa sidan haniyad jabin waad isku filan tahay waad ku saxneed in aadan naftaada u qiyaamin qof aan kala saari karin quruxda rasmiga ah iyo midda qiyaaliga ah aan kala garan karin wanaagga iyo xumaanta dhalanteedka mooda dhabta marnaba ha u ciqaabin naftaada qaladaad qof kale sameeyay ha u baabi'inin noloshaada qof aysan ka go'nayn inuu kula qaybsado noloshaada waad ku saxsanayd inaad qalbigaaga u furtay xasuusnow waad ka bawanaysaa xanuunkan waad hilmaamaysaa wixii aad soo martay waxaad sabaratay cashir weyn waxaadna noqotay waayo arag samee wixii wanaag ah xooga saar waxa naftaada horumar u horseedi kara iskuna mashquuli wixii wanaag ah ha furnaado qalbigaaga kuna dacayso bedel qeyr qaba in uu Alle ku siiyo afi una dicee qof kasta oo ku xumeeya marnaba ha ku fakirin inaad ka argoosato ogow waad isaaminteen xilli aad isku dhaweydeen bal tusaale yar aydin siiyo nin ayaa jeclaaday gabar aadani way isku fiicnaayeen markii uu soo bandhigtay arinkiisa una sheegay inuu jecel yahay ayaa si xun ula dhaqantay wayna ka dhaqaaqday intuu qoslay ayuu dhaqaaqay waxa yaab ku noqday arinkii wiil ay saaxiibo ahaayeen oo ku dhahay arinkan kuugu dhacay inta badan waxay sameeyaan marka uu ku dhaco dadka way murugoodaan qaar baa isdila qaar baa cuntada naca qaar baa qolka isku xira balse adigu waa qoslaysaa sidee wax u jiraan ninkii asigoo dhoola cadeynaya ayuu dhahay ayaduba waxay weysay ruux jecel oo anigana waxaan waayay ruux neceb haddaba waa maxay sababta aan u murugoonayo ugu dambeyntii ma lagu jabin karo haddii aadan adigu isdhiibin ama dhulka isdhigin ogsoonow hadda dhaawac ayaa tahay laakiin kuma dhammaan oo weli waxaad leedahay rajo aad u saraysa sidoo kale miyaadan la socon inay goobtan tahay goob imtixaan waxaan ka hadlayaa waa dunidee sidoo kale miyaadan la socon inay goobtan tahay goob imtixaan waxaan ka hadlayaa waa dunidee